السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أقيارتيتو باني سلامي عشر كان ما انتو عكو سابسين هاي ان سيدات اسو داونلود غريسا لهيد ان Dreamweaver CS 5.5 marka ugu koowaad waxa lagaaga baahan yahay in aad samaysid waxay tahay waa inaad soo download garaysataa uTorrent-ga aan kusoo deji lahayn marka koowaad waa inaad soo download garaysataa markuu uTorrent sidaan kugu soo baxo waxa laga baahan yahay ku dhufsatid download ku dhufso marka download ku dhufsatid sidaan ayaa ku soo baxayso oo ujeedaa in aad soo download garaysanayso isla markiiba wuu ku soo degayaa sida ugu fudud markii aad soo download garaysatid waxa laga baahan yahay in aad booqatid isla website-ka description-ka ku yaalo ayaad galaysaa marka website-ka sidaan ayuu kugu soo baxayaa marka ujeedaa Adobe Dreamweaver CS 5.5 marka sideed u helaysaa hoos ayaad u degaysaa waxaad tagaysaa meeshaan ku qoran tahay get this torrent and get torrent file inaad meeshaan ku dhifsatid ayaa lagaaga baahan yahay inaad ku samaysid marka waa inaad ogaataa torrentiga markaad soo download garaysatid waa inaad computerkaaga ku shubtaa kadibna aad website-kan booqatid aad ku dhufatid markaa ka dooratidba oo double click ku siisid isla markii wuxuu ku daraa uTorrent-ga marka ani hore igu download marka waa ujeedaa hore ayuu u download garaysnaa ku leeyahay markaan double click hadhowna markaa soo download garaysid isla meeshaan hoos ku soo dhiga double click ayaa siinaysaa uTorrent-ga ayuu ku soo download garaynayaa sidaan ayaa kugu samaysmaa markuu saan kugu samaysmo oo 100% ku tago double click ayaa siinaysaa marka double click siiso waa ujeedaa wuxuu ku sheegayaa meesha uu ku download garay ayuu ku darayaa kan markuu ku soo baxo double click si asigana marka wuxuu sameynayaa sida win aragka kala waaye track program inuu programka meel ku dhigo ma waxa hartaan lagu dhigo browse ayaan hadda leeyahay hore aan u sameeyay laakiin markaan description-ka aan dhahay desktop-ka ayaan ku sameynayaa markaan okay ayaa leedahay kadibna extract ayaa leedahay marka hadda wuu bilaabay marka intuu ka dhameynayaan isku soo laaban marka waa ujeedaa wax yar ayaa ka dhiman isla markiiba uu ku soo dejinayaa description-ka desktop-ka ayuu noogu diyaarinayaa waa hadda ku qoran mujid desktop folder noogu sameynayo marka waa dhameeyay marka aan iska soo xirno kulligood waxaana ma iska xirno kan aan iska xirno marka waa kana folderkii inta ayuu dhigay marka inta ku dhigay double click hadaa siiso marka waa ujeedaa inuu ku jirto faylkii la dhahay DLL5 iyo software-kii wixii dham inuu ku diyaar garaysan yahay ku shubidda daartina waa kana installation distraction waa lagu sameeyay meeshaas ayaa kala socon kartaa marka ku shubidana markale noo ahaanaysa insha Allah biidnillahi kariim sidaas ayaad ku heli kartaa insha Allah khayr ayaan idin rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh